mid ka mid ah aasaasiyaashii dowlad goboleedka Galmudug ahna madaxweynihii hore ee xibinaya Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa maanta soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ayaa waxaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay maamulka magaalada, odayaasha dhaqanka deegaanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado. Cabdullaahi Cali Maxamed oo ah rugcadaas siyaasadeed in badanna ka maqnaa deegaanka ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Cadaado waxa uu u korgeli doonaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka degmada Cadaado. ugu horeyn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee qaybta ka ahaa soo dhaweynta loo sameeyay madaxweyne Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa sheegay in inta madaxweynaha uu ka ahaa xibin iyo Xeeb uu wax badan ka qabtay deegaanka isla markaana ay abaal weyn u hayaan. waxa ay tilmaameen in aan loo kala harin soo dhaweynta loo sameeyay Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex, taasina ay sabab u tahay sida uu u kasbaday shacabka magaalada Cadaado. wuxuu yahay madaxweynihii hore oo ximan iyo Xeeb oo dalka wax badan deegaanka u halgamay ayaa nasiib wanaag maanta wuxuu u helay amaal gudkiisii inaan ku soo dhaweyno annagoo saqiir iyo waayeel. isu soo baxeennu intaas weeye. isu soo baxeennu intaas weeye. dadweynow sidaasaad ku timaadeen. madaxweynihiinnii hore ayaa idiin jooga. madaxweyne ku soo dhawoow. dadkaan meesha isugu yimid waxay isugu soo baxeen soo dhaweyntii madaxweynahoodii hore Galmudug oo wax badan ka soo maray deegaanka. madaxweynihii hore ximan iyo Xeeb. waxaan u taagannahay madaxweynihii ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed soo dhaweyntiisaan u taagannahay. madaxweyne waxaan halkan taagan waa dadkii reer Cadaado ku soo dhawow. waa ku soo dhaweynaynaa reer Cadaado oo soo dhaweyntaada diyaar ah ku soo dhawow. reer Cadaado waa madaxweynihii ximan iyo Xeeb oo u taagantiin maanta soo dhaweyntiisa ku soo dhawaada sacab iyo farxad ku soo dhaweeya adiguna madaxweyne ku soo dhawow. assalaamu calaykum waraxmatullahi. gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole oo qayb ka ahaa soo dhaweynta loo sameeyay madaxweynaha ayaa tilmaamay in Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex uu qayb weyn ku lahaa aasaaskii dowlad goboleedka Galmudug intii uu ka maqnaa deegaankana aanu weligiis ku dhaqaaqin arrin waxyeelo u geysanaysa dowlad goboleedka Galmudug. gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in madaxweyne Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex uu yahay nin aan ka macaashin mustaqbal umadeed isla markaana muddadii ay wada shaqeyntu ka dhaxaysay uu ku yaqaanay sifooyin wanaagsan. maanta halka waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynihii hore ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex oo ah nin deegaankan muddo badan ka soo shaqeeyay, wax badanna dalkan ka soo qabtay, muddo badanna naga maqnaa. aanan runtii uga mahadcelinayo maalintii xilka uu tiriyey ee Galmudug la dhisay iyo maanta inta ka dhaxaysa aanan maqal wax oo dhibaato ama isqaqabsiya ama maamuladii meesha ka shaqaynayay dib uu ku soo celiyey. dadka waxaa jira dad markay xilka ka tagaan dadka inta ku soo guriya laabta dhib iyo fowdo iyo la daba jooga. aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa barnaamijkaas madaxweynuhu intaas inuu soo salaamahan aan dhibkiis maqal. maanta wuu soo laabtay, wuxuu u soo laabtay iyo wixii uu deegaanka u yimid asaga noo sharxi doona. laakiin waxaan rabaa dadka reer Cadaado inaan hal u sheego iyo dadka reer Galmudug. madaxweynaha aniga waa wada shaqaynay, muddo badan aan wada shaqaynaynay. xaqiiqatan sifooyin badan oo dadka Soomaaliyeed ama qaar badan aysan ku aqoon ama aysan ku ogeyn aan ku oga oo aan hubo dadka qaar badan oo maanta shaqaynaya inaysan lahayn. waa nin horta ilaah ka cabsi badan, waa nin culummaa, waa nin aan dadka future-kooda iyo mustaqbalkooda aan gadan. aniga waxaan aad uga soo wada shaqaynay Galmudug dhismaheedii hore oo bilowga ahaa. muddo 4 bilood aan ka yarayn xamaraan joognay markii Galmudug la saxiixay in la dhiso. mar kasta ninkii u taagnaa oo ahaa Cadaado in shirka lagu qabto. xaqiiqatan maanta wax badan oo deegaanka u qabsoomay sabab u ahaa xilliguu meesha ka talinayana dadka qaarba si haw sheegay, laakiin xilliguu amniga badan ay ahayd. maamulkii ka horreeyay wuu ficnaa, amnigu waa ficnaa, laakiin marmar dagaal la dhici jireen qabaa'il culus. laakiin asagu intuu joogay waxyaabaha nasiibkiisa Ilaahay ka dhigay. waddanka dagaal kama dhicin, wuu xasilanaa, siyaasaddiisu way xasilaneed. waxaan leeyahay horta ninkaan sifooyinka badan oo noocaas u kulansaday maantana wuu soo laabtay. waxaan ku leenahay madaxweyne ku soo dhawow magaalada Cadaado.
ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Xibinaya Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex oo hadalka qaatay ayaa ka mahadceliyay sida qalbi furnaanta leh ee loogu soo dhaweeyay degmada Cadaado. Waxa uu tilmaamay in sababaha uu yimid magaalada Cadaado ay tahay sidii uu u ogaan lahaa xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka deegaanka iyo waliba la tashi uu doonayo inuu la sameeyo odayaasha dhaqanka deegaanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Cadaado kuwaasi uu sheegay inuu ku shaqeyn doono rabitaankooda. intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynteeda oo igu leh xushmad aad u weyn hadday noqon lahayd siyaasiyiinta oo noocyo badan leh gudoomiyaha degmada uu horseed u yahay xildhibaano wasiiro qof walba oo meeshan yimid waxaan rabaa inaan taarget gareeyo dadka elderiska ama dhaqanka odayaasha hooyooyinka waa dadkii meeshan magaaladan ay ku fadhiday taariikhda oo hadda ka sheekeynaya gudoomiyaha lama qaban karin dadka wax garadka oo indheer garadka haddaysan saldhig u ahayn waxqabad wuxuu ku beesgaraysan yahay dadka wadankaas geed fadhiga u ah dadkaas oo rag iyo dumar bale indheer garadka marka hore aan rabaa inaan si qaas ugu mahadceliyo oo iraahdo waxa la soo qabtay ilaahay ka sokow adinka u ahaa saldhig dhalinyarada oo position fiican ka qaadatay ciidamada amniga waa dadaan mar walba la hilmaami karin amniga qof kama shaqeyn karo umada ka shaqeyn karta ama bulshadan oo meel joogta ka shaqeyn karta dadkaas oo marka ayaga dhan is wata media ku soo haray social media ha noqdo media caadi ha noqdo idaacadahaas oo dhan waxay ka qayb qaateen nabadda iyo horumarka laga sheekeynayo dad badan oo aan isleeyahay maanta qaarna waa joogan qaar waa dhoofeen dibadaha aadeen qaar muqdisho u wareegeen waa dadkii horumarka deegaankan uu gaaray nagala shaqeeyay markii aan joognay ayaga dhan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waa tashanaynaa kulay waxba la isweydiiyaa baahida aan qabo ama wax bini aadamku ay raadinayaan waxa ka muhiimsan inuu dadkiisa la hadlo oo yiraahdo xagee wax marayaan xagee loo socdaa maxaa la soo maray xageen aadnaa taladaas waxa ka soo bixi doona markii indheer garadka iyo odayaashii lala hadlo ururadii hooyooyinka lala hadlo ururadii dhalinyarada lala hadlo ururadii kale deegaanka ka jiro bulshada lala hadlo waxa ka soo bixi doona inaan taarget gareyn xageen u soconaa xageen aadayna maanta munaasab ma tahay aniga ama qof kale inuu meeshan aado taasaan marka ku bees gareyn doonaa waxa aan aadi doono hadda waxaan ku bees gareynaynaa waxeena waa nimid waxaan ka mahadcelinaa shakhsiyan iyo aniga dadka ila socdayba sida aad noo soo dhaweyseen galabta waqtiyada kale waxaan ka tashanaynaa balsaan yeel lahayn waan idin sheegi doonaa wax aniga aan leeyahay waxaan rabaa ma jirto aan ummadeeda la tashan talada ummadda wax lagu qaataa hadhowna talada ummadda wax lagu maamuli karaa taasaan wax ku wadaynaa insha Allah waxa ila jeceshiina anna idin la jecelahay waa mahadsantiin aadan cali axmed VOS TV magaalada muqdisho.